وحنا السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي أنا موضوع اللي يصير موضوع آد وأدق واي لكن وحنا رجعنا إن شاء الله إن بدنا يليك إذا كمدة فكرة خلنا كهستي وحنا جعلنا الله يوصل صار موضوعه سادو قرطان إثيوبيا يسوقلتها في الصومالية مش شرعي با مش الشرعي ما مركو قرن كرتا wax laga doodo maaha wax la swarsado maaha laakiin markii sharci la aadayo waxay dadka inta badan sheegaan ama inta runtii jecel in ay arintaas ogaadaan haba u badnaadaan inta wanaagsan ee runtii diinta xariga ilaahay gacanta ku haysta waxay yaraha yiraahdaan baarlamaanka ayaa soo geliyay annaga markaas waxaan ka tirsaneen inta anada meesha joogtay iyo hadii ma aragtaan umar wasiirka caafimaadka halka uu fadhiyaa soo qaxay xaarku soo carray hadda ay shaqeyso meesha fadhiya doctorka marka in badan ba aaminsan in soo gelitaanka Itoobiya uu fasaxay baarlamaanka wali markaan anaga joogno marka waxaan rabaa in si fiican u dhageysataan si aan u kala baxno yaa soo gelinin maxay ku soo gashay siyaas u soo gashay waxaan rajeynayaa inaan qodob u qaato haddii la raali ka noqdo waxaan ku hadlayaa kullu timihi lawyer laakiin reemidgu xir waa boogsi ana waa boogsi sharciga markii baarlamaanka uu galay baash soo gelitaanka xabashida mas'uuliyadda wartu waxa qaadaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan sababtan waxa way 16 sano ayaan dagaalameynay anaga isdileynay hubka isku ay dhiibay qori kasto iyo rasaas kasto oo wadankaas ka dhacara kama imaan Mareykanka kama imaan Ingiriiska kama imaan wadamada Carabta kulli waxa la siinaysa xabashada kasoo bilow mingisto ilaa iyo mataqaana hadda ninkan تجري ماشي هيستويانها ملس أيها ممكن بحنجري أيها نوقي بحنجري أيها هذا بيجي يسكت لا أنا قالوا قرانشنا مرة أوكل غير سنة قبيله ما هو بوفتك الله درس أيها هذا نوكل 70 جنيه ما بينا رجل كل يحضر جيران قبلها أنا والناس جيران بقيمين وبحاول لك 70 جنيه قف والبقف كم مركز وقف كلا دراي أيها قبلها نوكل 70 جنيه ما كانوا أقول عصنا هاي أذكر عبد الرزاق حاج حسين أنا قلت لك اللي جالس برباري أريانو عبد الرزاق وحامون قانا إن فود سكس لقاعده الحمد لله أنا ما أنت عمري هم سستو قارني وعيلف الفوزية وأبي محمد الشيخ حسن وزيرها إبراهيم منسر كذي ما أنت أسلف إنه أنا أبي سكرتاري اللي قدها يفوزية أبي وزيرها عبد الرزاق وإبراهيم منسر كان يلعب يصدق هذا ما هو نير أنا يا إلى أسلف لسنا ما أنت أمحد وحاضرين ورسينه وإلهي سبحانه وتعالى لو ما عليه هو wax laga helo ilaahay waa maarta awoodaas rabbi subhanahu wa ta'ala iska leh waxay keenaysaa in jiilalka isku soo gaaraan xadaaro waay ilbaxnimada waa la isgaarsiiyaa tan waxay ka mid tahay ilbaxnimada ummadda ay isgaarsiisay ayay ka mid tahay sharciga soo gelitaanka xabashida ee dalka wuxuu oranayaa axdiga noo yaala waa ka xuma yar allahada culum badan ay ku jirto waxyaabo badan isku khilaafsanahay dhinaca constitutionka sharci waa runkan rabbi subhanahu wa ta'ala soo dejiya sharciga gal lagama gabanayo hada lagama sameyn karo kitaabka quraanka ah sharci rasmi ah dejisan laakiin anaga sharci ma waxaan anaga aan dejinayna ninba waa markaan hadda maxkamada u tagnay wuxuu yiri 275 ilaahay baa tiino waxa isku magacaawdeen sharci dejiyaal mar hadda tiraadeen yiri mataqaana waxaan nahay hay'adda sharci dejinta كل قالت يمير marka lama aan doodi karo xoolo wax badan markii meesha joogeen qoriyo leesteen afgoyra waa meesha si wadaadka walaalka qaar Allah si garka dheer leh culimada gooyo kulli kuwa culimadu soo xirteen ay ardayda aag fadhiyeen marka ma hadli karin laakiin mar aan xogaayr naga tafat intaan qawada la gaarin baan xogaayr isu dhiibnay sheekh khayr Allah si aad wuxuu ahaa codkar u ah waacidna marka tawciid markii uu mutawada si loo kala fadhiyo yana oo loo kala khatarsan yahay marka intii naga fadhiyo dhan naga dubsaday marka in xogaar naga saaran caabino u baahnayn waxaan ku yiri sheekh waxaan rabaa kaliya inaan weydiiyo hadda shuurada jirta marka sheekh xasan daahir gudoomiye ah guddiga fulinta sheekh Shariif oo madaxweyne ah xubnihi xogayaashii baa jira maamulkii baa jira waxaan rabaa sheekh inaan warsado waxa lagu kala sooco dadka lagu kala saaro ay ku kala amar qaataan maxaa af Soomaali lagu dhahaa ama af Carabi lagu dhahaa inta hadduu ii sheego waa kala bixinaa waa
waa misaajka casarmasha lagu tukanayo waa la buuxay anna waxaan intaasaan gaarsiinaya markaasuu rugmaha oo waxbaa noo yaalaan waxbaa noo qorano waxa kuu qoran ama af soomaali iigu sheeg ama af carabi iigu sheeg markaasaan kala baxayna inaan sharci deji ahay iyo inaan ilaahay u gafay iyo inaan kitaabkii qur-aanka meel oga dhacay intaas kii aan ku kala sheegayo waa la dooday waxaa laiskugu keenay waan qabnaayo waxaan qabnaa xeer iyo xeer nidaamiya oo na kala sooco oo guddiga fulintana shaqadooda u sheega guddiga shuruudana shaqadooda u kala sheega hogaanadana shaqaday kala qabanayaan iyo ciidamada amaradaas ay u kala qaataan annaga waxaan qabnaa baa xeer iyo xeer nidaamiya marka ma qabno sharci waxaan kaloo qabnaa af carabigan kugu sheega markay laa'ixa la dhahaa baa markay kaasii jecel yihiin mugtahay waxaan laa'ixa la dhahaa mar haddii laa'ixa la yidhahdana kaasaan ku kala baxaynaa aniga waxaan samaysanay wax cabdullaahi yuusuf sheekh shariif xasan iyo kala sooca cali maxamed geedi iyo intaanada xubnaha wasiirada isku sheegaysa nin walba jagada uu leeyahay iyo mooshinka meesha uu ka geysanayo iyo siduu kala maamulayo iyo anigii prime minister waxa noo dhexeeya iyo madaxweynaha aniga waxa noo dhexeeya iyo guddoomiyaha baarlamaanka aniga waxa noo dhexeeya ayaanu kala samaysano kaasaa noo ah charter mar hadduu charter ku dhibaayo waa iska af ingiriise iga tuura af ingiriiska af soomaaliga xeer iyo xeer nidaamyaa la dhahaa marka wadaagow sharci dejiye miyihiin kitaabkeen meel oguma dhicina adiga iyo cumaamadda ku sir anna qori hay qaadan waa saaxibna waa heshiinay waxa sukaaygii hadda ka mid taha casfaraas kugu tagnaaday laakiin in badan baan ogeyn in badan baan nala joogin waxay u baahan tahay inaan wax badan iska dhaadhicin oo dhiraano horta ma annagaa keennay mayadaa iskeentay mise waa la keenay